cashirkan waa cashirkeeni noo socday oo ahaa learning how to use a window PowerShell IC. cashirkan waa cashirkii 17aad weeyaan. hadda waxaan gudaha u gelaynaa kood kale oo asagana ka mid ah koodadkii hore aan ka soo hadalnay oo ahaa get information, get help, get process, get info, get help, get command, and get process. marka cashirkan koodkan waa kood la yiraahdo asagana waa get member, asagana waa koodadkaasuu la mid yahay. ku dheeraa maayo, halkaasaan haddaba tegayaa. arkaysan halkaan markaan tago waxaan la soo baxayaa window PowerShell aan la soo baxayaa mar walbaba. halkaan markaan la soo baxo, halkaas ayaan ku taabgareynayaa waxaan ku taabgareynayaa si aan dheeraal noqda, waxaan ku taabgareynayaa CLS suu kaleer igu noqdo. halkaas ayaan rabaa inaan ku taabgareeyo get memberiga marka aan taabgareeyo informationka uu siinayo. marka ugu horeyso waxaan ka bilaabayaa $sign m aan leeyahay, m markaan dhaho space aan leeyahay, equal aan leeyahay, space aan siinayaa. halkaas ayaan ku taabgareynayaa hello aan leeyahay, hello there aan dhahayaa. markaan dhaho hello there markaan dhaho apostrophe aan kor ka saarayaa, ama haddii kale isaa u taqaan labada comments wato. halkaa markaa aan dhaho oo halkaa aan saaro, markaa halkaas saaro oo koodkaas aan taabto enter aan dhahayaa. kabacdi haddana kood kale aan garaacayaa, $signkaan taabanayaa, m aan leeyahay. markaan dhaho slash aan dhahayaa ama period, link aan rabaa, linkigaasaan taabanayaa, waa iisoo baxayaa. kabacdi enter aan leeyahay. taas micnaheeda marka waxay u dhigan tahay inta number ama character ayuu siinayo device-ka aan isticmaalayo hadda. ku dheeraan maayo, haddana waxaan leeyahay $sign m aan taabanayaa, space aan leeyahay, calaamadii aan kasoo hadalnay oo ahaa format ama Python ayaan taabanayaa. halkaas ayaan ku qorayaa get member. adigoo arkaysaan markaan ku qoro uu iisoo baxaya 3 arab. markaan taabgareeyo get member wuxuu siinayaa property-ga iyo methodka ama quantity-ga oo aan isticmaalayo oo ku xiran character-ka ama command-ka isticmaalayo. soo aragtaan waxaan isticmaalayaa $sign m baan isticmaalayaa, enter baan leeyahay. waa aragtaa wuxuu siinayaa halkaa marka aan garaacay, wuxuu siinayaa name-ka iyo wuxuu siinayaa methodka iyo definition-ka oo ah property-ga ama quality-ga ama waxaa taqaanid methodka computerka ku jira oo coding ah. marka ku dheeraamaya halkaas waxaan rabaa inaan also ku garaaco waxa la yiraahdo get membery, oo waxaan ka wado waxyaalaha get membery. haddaan garaaco get member markaan garaaco wuxuu isiinayo hadda tan oo kale. tusaale ahaan waxaan ka bilaabaynaa to upperkaan ka bilaabaynaa, wuxuu isiiyo ayaa idin tusinayaa. marka waxaan leeyahay $sign aan dhahayaa, m aan leeyahay, slash aan leeyahay, markaan dhaho to aan leeyahay, haddana upper aan leeyahay. waa ii highlight gareysmaan 3 number, parenthesis ay soo baxayso, waa iska xirayaa, intan aan taabanayaa. marka aan soo bilaabay kor aan ka soo bilaabay, waa aragtaa capital ma ahayn, xarfo yar ahayd. hello there aan dhahay, hello there markaan dhahay hello there, waa aragtaa haddana wuxuu isiiyey hello there oo capital uu siiyey. mideeda kale haddana waxaan rabaa $sign ayaan taabanayaa, m aan leeyahay, m-ka marka aan taabto period aan leeyahay ama slashka u taqaanid. haddana waxaan leeyahay to aan leeyahay, lower aan dhahayaa. parenthesiga iska xiraysaa mar walba, waa character oo parenthesiga waa inaa xirtaa, haddii kale characterkii aad soo taabgarayso kuma siinayo. intan aan leeyahay. ulajeedada marka aan ka wado waa .NET weeyaan. .NET everything oo window PowerShell waxa weeyaan waa .NET weeyaan. marka waxaan isticmaalayaa hadda wax la yiraahdo .NET coding ama .NET command wax la isticmaalaa. ugu dambeyntii marka waxaan leeyahay halkaas ayaa waxaan ku garaacayaa $sign m aan leeyahay, markaan dhaho space aan siinayaa, calaamadii Python aan siinayaa, get waxaan leeyahay member aan dhahayaa.
markaan dhaho space aan leeyahay slash aan dhahayaa haddana waxaan leeyahay member type aan dhahayaa waa ii soo baxay member type markaan dhaho space ayaan siinayaa property ayaan garaacayaa ama waxa propertyga ayaan garaacayaa isagaa isiinaya inta ugu horeyso property markaan garaaco intaan leeyahay wuxuu isiinayaa inta nameka oo propertyga ayuu isiinaya calaamadan waa inay saan kugu soo baxdaa haddii aan tusaale ahaan aan dhaho method keliya haddaan dhaho intaa highlight geliya ayaan ku bigareynayaa hoos ayaan ku waxeynayaa halkaa propertygaas ayaa waxaan leeyahay method aan leeyahay method oo u taagan method ayaan dhahayaa method markaan dhaho intaan leeyahay ayadana sidoo kale methodka ayay siinaysaa inta method oo ku jiro haddaba cashirkan waa cashirkii 17aad weeyaan oo ah learn how to use window PowerShell IC haddii aad jananka ku cusub tahay subscribe-ka noo saar like-ta taabo comment ka bixi comment-kaada waa inoo muhiim waa inoo cashirkeena dambe